baryadu xilliyaa jira iyaduna ay ku sii fiicanta in la baryo xilliyo culimmadu ay yidhaahdaan ducadu waa mustajaab oo lala eegto ilaahayna qur-aanka inoogu tilmaamay inaynu wakhtiyadaa la baadi doonano maxaa ka mid ah thuluthu lakhiir min alleyl habeenkii saddex dalool oo daloolka dambe waa wakhtiga dadku hurdada u jecel yihin dadka saalixiintiina waa wakhtigay ilaahay inay is hortaagaan ugu jecel yihin habeenkii ثلث كوضم بأيه والمستغفرين بالأسحار با إلهي تلمام مركو كوي ونكسنات المامي والمستغفرين كوي إلهي دبداف كوي ديستا بالأسحار وقت صحر وقت صحورته كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون ونكسن إلهي جنة إن قليات المامي وحلوط المامي هبينكي إن يكعي جرين وقت السحور كان inay ilaahay baryi jirin waxaa la yidhaahdaa habeenkii ulukaa dambe intay ilaahay u tukadaan oo cibaadaystaan wakhtiga dambe ee salaadu soo dhowdahayna baryay u dhaqaaqaan ilaahay baryadiisa inay badiyaan xadiidka culammadu ay yidhaahdaan waaba mutawaatirna waa ka uu rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala ama nebigu calayhi salaatu wasalaam tilmaamayo yanzilu rabbuna kula leylatin ilaa samaa'i dunya rabbi baa u soo dega samaau dunya habeen kasta degitaan isaga u qalma marka ay thuluthu leyl harsan tahay dabeetana waxaa ilaahay yidhaahdaa habeen kasta wakhtigaa dambe man yadcunii fa astajiibu lah war kuma ay baryey aan wax ka aqbalaa baa ilaahay leeyahy adna waad iska hurdaa ilaahayna waa kuu yeedhaya wuxuu leeyahay war yaa ay baryo aan wax ka aqbalaa man yas'alunii fa ucطiyah war kumaa waxay weydiisanaya aan wax siiyaa baa ilaahay leeyahay kumaa waxay weydiisanaya oon wax siiyaa من يستغفرني فأغفر له وريا دم دافي ويدسني دمي سدافا رب الله سبحانه وتعالى أوقات فاضل كا بريضة كوها بونتا هي وحا كمدا مالنتا جمعها سيب ساعات كمدا نبي عليه الصلاة والسلام فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها جماعة waxa ku jirta buu nabigu leeyahay alayhi salaatu wasalaam saacad qof muslimi aan alla waafajin oo aanu ku beegmin isagoo taagan oo ilaahay baryaya oo wax weydiisanaya alle ilaa ya ilaahay waa ka aqbala markaasaanu nabigu gacanta ku tilmaamay ama raawigu gacanta ku tilmaamay isagoo yaraynayo tilmaamaya wakhtigu wakhti yar inuu yahay wakhti badan aan ahayn wakhtiga kan maalinta xaguu kaga beegan yahay aqwaal tiro badan baa culamada ka soo aroortay waa wakhtiga waa subaxa dabadii waa kan aqwaal tiro badan labaa culamada ka soo aroortay laba qowl baa se u daliil roob bay yidhahdaan oo axaadiid aada moodaa inay ku soo aroortay midi waa xadiidka bukhaariya sheegaya hiya bayna an yajlisa alimaamu ilaa an tuqda asalaa imaamku markuu mimbarka fadhiisto ilaa iyo inta salaada la dhammaynayo intaa dhexdeedaa la aqbalaa qowlka kalena waxa uu sheegayaa xadiidkii cabdillahi bnu salaam inuu nebiga u yimi uu u tilmaamay inuu kutubtooda ku hayaan wakti qofka muslimka ee taagan ducada laga aqbalo saacad inay jirto uu nebigu yidhi ow bacdu saacaba saacad ama saacadba wax ka yar markaasuu yidhi ha saacadba wax ka yar waa run baad sheegtay ilaahay rasuulkiisiiyo markaasuu nebigu wuxuu u tilmaamay hiya aakhiru saacati min saacaati nahaar iyana waa saacadda ugu dambaysa ee maalintaasi ugu dambaysa maalinta jimcaha saacadda ugu dambaysa jimcaha markay cadceedu dhicitaanka kusii dhowdahay markaasaan idhi buu yidhi oo waktigaasi wakti salaadeed maaha sababta la yidhi qof salaad tukanayu xadiidku ahay markaasuu wuxuu yidhi bala ina alcabda almu'mina idaa sallaa uma jalasa laa yajlisuhu ila salaa fahuwa fi salaa qofka mu'minka hadduu salaad tukado dabeetana uu fadhiisto ilaa salaada kale u soo gelayso oo uu ilaahay dee cibaadaysanaya intaasoonu wax kala samaynaynin salaadna uu sugayo intaasoo dhan waxaa loo qoraa sidii nin salaad ku jira yani casar markaad tukatay haddaad iska fadhiisato dabeetana ilaahay baryadiisa aad iska sii wadato iyo ducooyinkaaga iyo qur-aan akhriskaaga ilaa iyo waktiga aad ka gaadhayso waxaa tahay un nin salaad ku jira markaa kanna xadiidkii way waafaqaysaa wahuwa qaa'imu yusalli buu nabigu ku tilmaamaya idan labada qowl waa culammadu waa tilmaamaan waa waktiyada faadilka ee ducada la aqbalo
وحكم إذا علماء إلى هذا واختيار الدعاء الله أقبله بشرين بجنا رمضان سيبا طبعا كذب سيبا هبينك ليلة القدر قال إلى هذا هبينك عائشة لا هي دي لا هي وفتشي محن إلى هذا فهتنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه أوقات فاضل وحكم إذا ما أنت عرفة إذا تكون عرفتها جيد نبغى حدا أفضل دعاء يوم عرفة بريا إله إلا بريا وحاول فضل بدن بريا ما أنت عرفه وأفضل ما قلته أنا والنبيين من قبلي أنا أيام بيدي جهر رسم وحرمك وهذا الله وحاول فضل بدن هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أوقات للرجالية دعاء إن الله أقبله وحكم ذا لبدأ آذان تونا حيسا markuu muadinku aadaanka dhameeyo markuu aadimayo inaad wuxuu muadinku leeyahay ka daba tidhaahdo markuu dhameeyana inaad kow nabiga ku sallidid u ducaysid in ilaahay wasiilada waafajiyo adna aad ducaysatid ducooyinka soo arooray waxaa ka mid ahaa ducooyin badan baa adigu waqtigaa inaad adna ducaysatid nabigu waa wuxuu yidhi adducaau laa yuraddu bayna alaadaani waliqaama fadcu دعاء لما رديه لما سوعليه دعاء ولا حيسا هذاك يا إقامة إيه إلهي بريء حديث يا أحمد يا أبو داود الترمذي غير كود بوريه شهر البرن الصحيح بقول المامية نبي روح كلوير عليه الصلاة والسلام ثنتان لا تردان لبا لما عليا ابو نبي أو قل ما تردان أما ويرت أنت اللي عليا الدعاء عند النداء وكاين بصوشي المركة إلهي دتك لو يا صلاة ومركا مؤذن قلنا بيان أنت الله قيمين الدعاء سته إيه وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا إيه مركا جهاد كإسلام قال وجرى إذا ما ذو يسدح قلان مركا سنين الدعاء سته دعاء والله أقبله واختيار الدعاء في عنته وحكم ده صلاة فرل كامر كتكذب صلاة فرل كامر كتكذب النبي قال له عليه الصلاة والسلام أي دعاء أسمع دعاء تيبا لا أقبل أبيه هذا يعني دعاء لا أقبل أبيه واكي جوف الليل الآخر بالنبي هبينك جوده حقي سدنب هبينك الدنب جوده يعني ثلث الليل كي نسوي شيء كده وياه هذا والله أقبله هي ودبر الصلوات المكتوبة ودبر الصلوات المكتوبات هي صلاتها فرل كا قداشود صلاتها فرل كا قداشود مركا فرض كا تكتير لما يستيد كذب إن إلهي بركة فرل كا قداشود إن لبريا ووقت جه النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل الصحابي اللي ورد شريف حقوري معاذ وهكتجي في دبر كل صلاة كست دبدي دينا تلاضو اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وادعو إلهي يقول قرقار حسكاغا يا مهدنقاغا هي عبادة دوانا جنتيدا إلهي يقول قرقار بو إلهي ويدي سبولي صدح ذا الشيء إلهي ويدي الصلاة كست دبدي المحدثين تبارك أحاديث تفسير أيام هي الدعوين كتراد بدن لصار رقار كم ده بواحد قار كود واحد كفسران دبر الصلاة كوحوي يعني انتهى الصلاة من نقصان ومركز تحيات